إنا لله وإنا إليه راجعون متكمل ciidamada booliska Soomaaliland ee ku sugan gobolka Awdal gaar ahaan kamid ah waardiyaasha jaamacadda Amuud ee magaalada Boorama ayaa aawa goor 6 maqribnimo waxay rasaasi kaga dhacday mid kamid ah ardayda ku jira kulliyadda engineering oo lagu magacaabo Ibrahim Abdishakuur Ibrahim oo ku jira sanadkii labaad ee kulliyaddaasi sida ay xaqiijiyeen maamulka jaamacadda Amuud haddaba waxa la wadaagay ehelada qoyska iyo qaraabada uu ka baxay marxuumkaasi taasi tiiraanyale maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama madax dhaqameed Awdal taliska qaybta booliska gobolka Awdal Allah u naxariistay ardaygan isagu geeriyooday iyo waliba askariga rasaastu kaga dhacday ayaa waxa la sheegay inay ka soo jeedaan bariga gobolka Sanaag ugu horeyn daba waxa hadalka iska daba qaatay barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalintiin barmaayirka degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame iyo gudoomiyaha jaamacadda Amuud magaalada Boorama Professor Saleebaan Axmed Guuleed waxaana halkaas ka sheegeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun قدر الله ما شاء فعل إلهي بس دون يا كور مغرب كيا وحنين عسكرية حبتك كذا عذا إبراهيم عبد الشكور إبراهيم وحن لنا قوس كيا قرابدية الكيبة سمري من الله نجود السيو ونجود البحي أرض مستقبل كيس تسوي في أبو هذا سنة كلامات إنجنير كتير سلاو نور شيء بروفيسور كو إن وحن كحنا شيل كارد حياة بانو كحنا هاي قبلهان يجمع على هم باو ونقطع سنينا إلى كاس جيريودي يا سكرجة حبضو كقطع ذيبا لابد واحد كودي مدين برج السنة وحنا لنا هاي لما تود بقى لا يستمر هاي نقصيو شركة صدور العي بليس كعنتو كهيا سكر بيلو سبوها بعدين بكتشرة السجن كل جوان كيس بليس كأنه كسوقنا إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan diraynaa tacsi tiiraaye leh oo ku dhacday Ibrahim Abdishakuur Ibrahim oo ahaa arday ku jiray jaamacadda Amuud sanadkii labaad qaybta engineering-ka rasaas kaga qaraxday arday askari kamid ahaa waardiyayaashii jaamacadda waan ka xunnahay waxaan u tacsiyeynaynaa qoyskiisii qaraabadiisii ehelkiisii degmada Boorama oo ay 5 sano ugu dambeeyay deganay jaamacadda Amuud iyo qaraabadiisa iyo gobolka iyo Soomaaliland baan ka tacsiyeynaa mar walba shilalku way dhacayaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun askarigi gacanta geystayna wuu xiran yahay baadhistiina way socotaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi u diraynaa qoyskii uu ka geeriyooday Ibrahim Abdishakuur Ibrahim oo ahaa arday sanadka labaad ee kulliyadda engineering-ka jaamacadda Amuud ardaygaas oo ay rasaas ka timid nin booliis ay gaadhay arrintiina booliiska ayaa gacanta ku haya oo baaritaankeedii ninkii shilka geystayna uu xiran yahay booliiska ahaa ardaygana saas ku geeriyooday waxaan aad iyo aad uga xunnahay gobol ahaan jaamacad ahaan iyo Soomaaliland ahaanba ardayga geeriyooday oo ka ku dhuftay iyo isagu ay ka wada yimaadeen bariga Sanaag aad iyo aad waan ka xunnahay ardayga yagiiba ahaa inanka yagiiba ahaa kalada qaranka uu shaqeeyo booliis qaranka uu shaqeeyo ahaa labadaba waa bahdin xaqana waa isku bahun xaqana waa isku bahun bay haayeen sida daraadeed ayaanu eheladii iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo qaraabadoodii ayaan tacsi u direynaa annagoo ka xun tiiraanyeysan inankaas oo sanadka labaad ah mustaqbal fiican runtii lahaa haddana ilaahay inama weydiiyo ciduu qaadayo isagun baa u taliyo ofiisihi baa u yimid ofiisihi ilaahay oo horjoogsi lahayn ayaa u yimiday marka mar labaad iyo mar saddexaad annaga oo jaamacaddii mathalayna madaxdii kale la socoto madaxdii qarankan aan halkan la joogiyo kuwa gobolka iyo odayaashiiba ayaan tacsi weyn oo kashkiya laabta ka soo go'day ayaan u diraynaa geestooda qaar kamid ah madax dhaqameedka gobolka Awdal ayaa eheladii marxuumku ka baxay taasi tiiraanyale u diray waxaanay sheegeen in gacanta lagu hayo askarigii dilkaasi geystay ilaa haddana ay socoto baaris Allah u naxariistana Allah siiyo eheladii uu ka baxay iyo waalidiintii iyo walaalihii iyo qaraabadiina samiriyay baan Allah ka siiyo jaamacaddii iyo ardaydii la kulliyadda ahaana samiriyay baan laga siiyo dhammaan dadka iyaga reer Awdal ee maanta halkan maamulkiisii iyo madaxdiisii dhaqankuba wada joogaan ku tiiraanyeysan ee ay naxdinta gaarka ku tahay samiriyay baan Allah naga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun
halkan waxaa isugu nimidnay marxuumkaa dhintay ibraahim cabdishakuur ibraahim ilaahay naxariista siiyo qoyskii iyo qaraabadii iyo walaalihiina ilaahay samir iyo iimaan jamiila ha siiyo allah u naxariisto waxba sidii haddii la dhahdo muxuu ku dhacay lama yidhaahdee maxay ku qabowdaa iyo maxay ku dawowdaa unbaa la yidhaahdaa marxuumkaa ninkii gacantu kaga dhacday wuu xidhan yahay waa buliiskaana gacanta ku haya iyo xukuumadda iyadaa haddii la dhaahdo haysa waa siday ahaan jirtay dhammaan tarakadii iyo ehelkii uu ka tegey iyo jaamacadihii iyo dhammaan ummadda waxaan leenahay sabir iyo Allah ka siiyo gaar ahaan waalidiintiisii iyo walaalihii iyo sabir iyo Allah ka siiyo waxa isku kaaya keenay intayadaasina waad garanaysaano waxa weeye waa damqasho haddii gobolkan ay mid gobolkan ay ku dhici lahayd ama mid gobolladan kale reer Soomaaliland ku dhici lahayd intayadaas iskuma nimaadeen intayadaas maanta iskuma nimaadeen laakiin waxa isku kaaya keenay cid kasta ya meel shafog ka yimid baa isku kaaya keentay taasa maanta habeennimada xilliga isku kaaya keentay waxaan leenahay sabir iyo Allah ka siiyo gabigeennaba dhammaan tarakadii uu ka tagay sabir iyo Allah ka siiyo Hussein Hataye Gafna Universal TV Borama